taageerayaashii Manchester United social media oo dhan dabaaldegay ku qabsadeen sababtay u dabaaldegayaan iyo waxay u dabaaldegayaan iyaga hata ma oga adiga idaabanay ma sheegi kartid sababta taageerayaashii Manchester United ay u dabaaldegayaan adigana ma ogid anigana ma ogi waxaa midaas koos gareynaysa Manchester United waa koox iska dulman waa koox la heestayaal ah oo la iska gumaado taageerayaasha Manchesterna ma aaminsana kooxdooda inay koox tahay oo marna badin karta marna laga badin karo ma aaminsan waxay taageereen sidee anaga ku badin karna laba kulan isku xigto oo Premier League ah hadda sidee Manchester United ay ugu badin kartaa Manchester City iyo Arsenal laba kulan isku xig war kooxdeena aamin inay koox tahay oo kulan walba ay guuleysan karto noocaas waxay ku leeyihiin taageerayaal aan ahay oo inay meel soo fadhiistaan kooxdooda inay ka hadlaan oo soo fadhiistaan sidee sababtee maanta ku dhihi kartaa Manchester United aa taageeraa waxaa meesha ka cad Manchester United iyo Portsmouth maanta Portsmouth inay tayo leedahay oo Portsmouth quality leedahay waxaa ku ogaan kartaa Portsmouth halay waxay garaacday kooxdii Championska oo Premier League ahayd Liverpool ay garaacday Liverpool waa kooxda ku guuleysatay horyaalkii ugu dambeeyay Premier League waana waqtigan kooxda la dhihi karay Championska Premier League iyada waa isla Liverpool Portsmouth halay garaacday Manchester Arsenal garaacday dadkii oo dhan waxay leeyihiin sidee ku dhacday Arsenal sidee oo ugu badin karta Manchester United taageerayaashii Manchester United kulligooda meegay wada qaateen horta taageerayaashii United kulligooda ma gabdha rag Manchester taageera ma arkin gabdhihii Manchester United taageeraya social media meel walba alalaasay saas u maraya waxay leeyihiin anaga badinay ee kulan Premier League Arsenal ka badinay hadda ma aaminsan kooxdooda inay tahay koox guuleysan karta inay tahay ma aaminsan wax koos gareynay qaylidan oo dhan ma aaminsan kooxdooda inay tahay koox guuleysan karta oo kulan guuleysan karta kulan laga guuleysan karo waxay aaminsan yihiin kulan walba in iyaga la garaacayo oo masaakiin yihiin kooxdooda mar walba saas loo garaacayo maskaxdooda oo dhan intaas ku jirta in kooxdooda koox xifaaltanta aheen oo koox walba garaaci karto oo Manchester United made United tahay oo la iska garaac hadda waa runde Manchester United taageerayaashooda aan idin xasuusiye tan waa Manchester United waa kooxda noo dulman kaliya horyaalka Premier League Manchester United Emirates Stadium inay ku badisa tan ilaa iyo 2017 hadda 17 cunugii xilligaas dhashay xilliga hadda ma cad oo dhiganayaa waa arday ma cad dhigta tan ilaa iyo waqtigaas kooxda Manchester United Emirates Stadium inay imaado wax guul ah kama gaarin kugu celiyay halkaas Manchester United Emirates Stadium inay imaado tan ilaa iyo 2017 wax guul ah kama gaarin kooxda Arsenal that's why taageerayaasha Manchester ay ku rumaysan laayihiin in kooxdooda Emirates inay tagtay soo badisay ma aamini karaan waana sababta keentay inay meel walba u dabaaldegaan oo guushooda ay u maleeyaan in horyaalkii ay ku guuleysteen haddana ogow Arsenal ilaa ay hadda hogaamiyaasha horyaalka waayada kooxdooda Arsenal waxay ka dambaysaa 11 dhibcood miya mase 12 dhibcood oo Premier League ay ka dambaysaa wayna si dabaaldegaan sabab ay u dabaaldegaan meesha miyana wax challenge oo Manchester United maanta naga dhaxeey ma jirto challenge oo Manchester United maanta nala gali karta ma jirto Manchester United koob iyada ciyaaraysa oo sanadkan ay isleedahay waa ku guuleysan karta FA Cup laga reebay Community Shield laga reebay koob walba ciyaaraysi waa laga soo reebay xitaa Europe League ma ciyaarayso Premier League tabar ma lahayn waatan hal kulan haday badis waxay taagan tahay say ku badinay anaga ma kulan Premier League guuleysnay ee Manchester United ma Arsenal ka badin karta saasay aaminsan waa sababtay u dabaaldegayaan oo la qaylinayaan koob dhan u tartamayn Premier League ay u tartamayn koob iyada u tartamaysa waqtigan jirin haday ka badis i koox Serie D joogta ka badis waa isla sim wax difference ah u dhaxeeya mala Arsenal Sunderland ka badisay Arsenal ma Sunderland ku xuntiin Manchester United fans war isku laafta dad waaweynatiin isku laafta ma Sunderland ka liidatiin ay sheeg Sunderland Arsenal garaacad hadda waa Sunderland oo Serie B hadda ka imaad taas waa ina rumaysatiin Arsenal inay koox caadi ah tahay koox caadi ah oo mar walba la garaaci kar
oo iyadana wax garaaci karta inay tahay rumaysta maskaxdiina waa ka dhaadhici la'aadin Manchester Arsenal garaacaysa ma rumaysan kartiin Arsenal koox aadi oo la garaaci kara inay tahay ogaada Liverpool shan oo Bournemouth garaacaysa Arsenal soo garaacday ogaada horta aqligiina ha shaqeey Sunderland oo horyaalka Premier League heerka hoose sanadkan ka imaaday Arsenal garaacday ogaada kooxdiina daciifnimada idinka u horseeday dadku u horkacay daciifnimada Manchester United waa taageerayaasheeda oo aaminsaneen kooxdooda inay tahay koox badin karta taas waxa meesha kaaga cad Manchester United inay tahay koox dhimatay oo meed ah hadda waa meed United Manchester United kulan Premier League inay iga badisan waxa ugu dambeysay Cristiano Ronaldo waxa number 7 u watay Manchester United oo number 7 u watay 5 sano wuxuu ka dheeloyaa Saudi Pro League 5 xilli ciyaareed Saudi Pro League uu joogaa Saudi uu ka xamaalinayaa oo wuxuu dhaliyay goolal ka badan 200 oo meesha ku dhaliyay idinkana guushin ugu horeysay oo Arsenal ka gaartina hadda u dabaaldegayeen bal ceebtaas ila fiiriyay aniga hadaa ahaan lahaa taageere Manchester United ma hadleen afkii baa juuqda geebayaa dhila meesha hadal ma ka jira hadalna ma ka banaana meesha inaa hadishid ma ku banaantahay horta isweydii taageere United adoo ah maanta Arsenal ka badisay inaa la u dabaaldegtis taas waxay ka dhigan tahay inay tihiin dad maayil yar oo maskaxdiina yarta ah waxba ku jirin oo wax la soo dhaafay iyo wax la maraay xitaa kala ogeen kooxdiina darajadeeda iyo wax qabadkeedana cabir ka haysan inaa tiina meesha ka cad runta la isku sheego runta in la idin sheega u baahan tihiin taageerayaasha United horta Manchester United bisaba taageera gabdhiya social media meel walba saasay ugu alalaasayaan mid Manchester United taageero oo saaxiibanahay maanta 2000 oo video wuxuu soo diray luuqay ugu soo diray hebla loo gambiyay gooshan idinka dhalinay saan waa 2000 oo video way dhan yihiin wax uu soo mushin gareynaa iyo videoda luuqay ugu soo diray wallahi tan koox maan wara taageerayaasheeda oo dhan waa qalbi caruur caadi ah bal adiga isweydii guul naga gaarteen taageerayaasha United oo guul naga gaarteen iyo Sunderland guul maanta naga gaartay guusha Sunderland naga gaarta aqabadna oo Sunderland waa koox tartama ah guusha maanta idinka naga gaarteen haddii naga gaari lahayd koox kale oo kooxooyinkan adag oo tartama ah waxbaan dhihi lahaa City haday iga gaarto waxbaan dhihi lahaa Liverpool haday iga gaarto waxbaan dhihi lahaa Liverpool darajo walba iyada joogta kun maray hadda ka fiican tahay oo way ka soo dul maray meel walbana way ku hogaamin doontaa kooxdan Beedkan United ah haday iyada iga badinaysid hadda guusheeda guuldaradeeda xalay waxa iga darnay Liverpool inay soo badis Liverpool laga badiyay that's why aan waxba ila ahayn Manchester inay iga badisay iyo inkal waxba uma arka sababtoo ah cunugii xilligii Manchester United Old Trafford gegada Emirates Stadium inay ku badiso ugu dambeysay cunugii waqtigaas dhashay hadii iskuul macado dhiganoya waa arday iskuul waaweyn oo dhiganoya macado dhiganoya waa arday tan ilaa iyo up to now hadda hal guul gaarteen aasi hadlaysin meesha hadal ma idin ku yaala horta hadal ma jira hadal ina hadashin xaq ma u leeyahay horta meesha ina hadashin idin ma banaano tan kale aamin kooxdiin inay koox tahay marna badis oo marna laga badin kara inay tahay aamin anaga badini sidee anaga ku badin karnaa Arsenal ma anaga ka badin karnaa ay taagan social media oo dhan wartaageerayaasha United inay qalb caruur yihiin waxa ku ogaaday kuwa Old Trafford ina ugu tagi ugu soo badiyay 3 dhibood nadiif ina ku soo qaatay oo haddana social media qayli iyaga ku soo bilaabay oo iyagoo dhahayaan Binonia laba Binonia isku baasanay Arsenal Binonia ma baasanin daaficay naga gashay 3 dhibood aan oo ka heesta xalay maxaa qabanaysan idin kaliya 90 minutes counter attack raadinaysan daafica ku jirteen referee idin waday penalty caadi la diiday oo red card oo red card laba red card oo idinka leeyihiin oo yariyaan Manchester United oo gacan qaad aadi sameeyay red card iska daayay yellow card hata la siin marka koox referee waday haday iga badis iyo hadii kale oo hadana tartamayna waxa uu arkay malahan idinkana kooxdiina ogaad inay koox ahayn oo Mid United tahay
tan iyo Cristiano Ronaldo oo Manchester United u dheelay guushaada ugu horeysay waa Emirates inaa ku badisid waxa kugu dambeysay 2017 hadal dhan ma jiro muuqaalka meel fog gaarsiiyo